waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo kamid ah dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheregsanahay waan ognahay cabasho ma dhamaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconnaa cabashada waxay tahay saad la socotiina habraaciya iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida gudiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina gudi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan sameynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha habraacyo lisku waafaqay oo la saxiixay ayaa yaalo cid ka sarreyso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxaa kaloo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka markasta waxaan u taagannahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan ay marsiinayaan wadada ku waajibka saa la socotaan mas'uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida gudiyada doorashooyinka waxaa ka mas'uula madaxda gudiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka faragelintaas siyaasadda meel ay idinka soo gasho ma lahan waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraal ah soo maahan madaxda dowlad goboleedyada waa in ay gudiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogtaynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas'uula guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in gudiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas'uula guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga uga garnaqaan cabashada doorashooyinka waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiyo laga soo hadlo ama Twitter ama Facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraac ay leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dawladii hadday yihiin gudiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraac uu dhigay waxaana mas'uuliyadaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas'uulka ah wixii cabasho ah waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan markasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habka ay u marayaan habraacaas xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuqmaasuq ah oo ay ku kacaan aniga ka ra'iisul wasaare ahaan marna ma aqbalay wax musuqmaasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas'uuliyaddeedu tahay gudiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa mahadsantihiin mar kastana waa idin garab taaganahay wabillahi tawfiiq